kuliyadda macadka maarinta iyo adeegga shacabka ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya haddaba waxaa xafladani qalinjabinta ah ka soo qayb galaya mas'uuliyiin ay ka mid ahaayeen maareeyaha macadka maarinta iyo adeegga shacabka ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdirashiid Sheekh Cumar wasiir ku-xigeenka xafiiska TVEDka mudane Cabdirasaaq Saxane wasiir ku-xigeenka xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha mudane Cabdishakuur Cismaan wasiir ku-xigeenka xafiiska adeegga shacabka iyo horumarinta shaqaalaha mudane Xasan Cadan iyo waliba marti sharaf kale haddaba waxaa kulankani ugu horeynba ka hadlaya mas'uuliyiin ay ka mid ahaayeen maareeyaha macadka maarinta iyo adeegga shacabka ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdirashiid Sheekh Cumar iyo waliba wasiir ku-xigeenka xafiiska TVEDka mudane Cabdirasaaq Saxane kuwaasoo mahadnaq ka bacdi ka warbixiyay marxaladaha kala duwan ay kuliyaddu ay soo martay iyo waliba halka ay haatani ay marayso mudanayaal iyo marwooyin waxaa maanta halkan ku qalin jabinaya difcadda 11aad ee kuliyadda ka baxday oo dhan 419 kuwaas oo kala 193 wiilal ah iyo 226 gabdho ah oo isugu jira xisaabaadka maamulka cududa shaqaalaha maamulka xafiisyada iyo soo iibinta hantida taasoo tirada ka qalin jabisay ilaa hadda kuliyaddan ka dhigaysa 4408 arday mudanayaal marwooyin kuliyadda maarinta iyo adeegga shacabka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waxay leedahay laba xarumood oo kala Jigjiga iyo Goday kuliyadda maarinta waxay horumarka deegaanka ka socda uga qayb qaadataa iyada oo soo saarta xoog waxbartay oo leh aragti horumarineed iyo mid shacab kaalinka ku leh horumarka dadka iyo kan deegaankaba difcaddan 11aad oo ah difcaddii waxaan ku raadayay ugu tirada badnayd oo tiradoodu dhan tahay 419 isla markaana 226 kamid ay tahay gabdho taasoo ku tusinaysa xaddiga maxaan ku rahay saamiga dumarku waxbarashadu ay maxaan ku rahay kor u kacday taasoo run ahaantii ah wax lagu cabiri karo ka qaybgalka haweenku maanta halka uu marayo waad ogtiin xukuumadda deegaanka Soomaalida iyo xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaaligu waxay mudnaan siisay maxaan ku rahay dumarka maadaama ay mudnaantiisa ka qaybgalkooda waxay idin tusinaysaa tani in ay mudnaanta la siiyey si firfircooni leh oo xilkasnimo ay gabdhuhu ay u gudanayaan oo iga soo baxayaan sidoo kalena waxaa halkaasi abaalmarino lagu siiyay ardaydii kaalimaha hore gashay iyo waliba kuwii intay waxbarashada socotay la yimaaday firfircoonida dheeriga ah inta kadib waxaanu waraysiyo gaar ah aanu la yeelanay qaar ka mid ah ardaydii ka qalin jabinaysay kuliyaddaasi kuwaasoo na tilmaamay inay dareenkooda farxadeed u yahay maanta mid haba yaraatee aan la soo koobi karin halkana mahadnaq ballaaran ay uga dirayaan cid kasta oo garab istaagtay intay ku howlanayeen waxbarashada marka koobaad waxaan u hambalyeynaya ama halkan aan ka salaamaya xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya marka labaad waxaan salaamaya waalidkii dhalay aabahay iyo hooyaday iyo familigayga iyo dhamaanba intii magacayga muuqayo taqaan magacaygu waa Farxaan Axmed Maxamuud waxaan ka mid ahay wariyaasha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaan aad ugu faraxsanahay qalin jabinta maanta aan ka qalin jabiyay macadka maareynta managementiga waxaan ahay ciidanka booliska gaarka xubin ka mid ah horeyba sidii aan nabadgelyada uga soo qayb qaatay haddana waxaan rajeynayaa inaan horumarka uga qayb qaato iyo dabargoynta jahliga waxaan leeyahay hambalyo ardada ila qalin jabisana aad baan ugu hambalyeynayaa ayagana ee dadaalkoodii waajibaadkii soo gutay walaaladii dadkii igu soo waxbarashada garabka igu siiyay ayagana aad ugu hambalyeeyaan marnaba ilaawi karnoon mahadcelinaya waxbarashadeedana waxaan jeclahay inaan sii wato oo aan guul ka gaadho si kastaba ha ahaatee difcaddani oo ah tii 11aad ay ka qalin jabisaa kuliyadda macadka maarinta iyo adeegga shacabka isla markaana ay ka qalin jabinayaan ardaydu heerka diblomaha kuliyaddani macadka maarinta iyo adeegga shacabka ayaa waxaa sanadka ka dambeeya isi soo taraya ardayda ka qalin jabinaysa kuliyaddani isla markaana ka qayb qaadanaysa howlaha horumarineed ee haatan ka socda deegaankeena caddanina waxaa la filayaa inay noqdaan kuwa garab istaaga isla markaana ka qayb qaata howlaha horumarineed ee xukuumaddeenu haatan ay ku howlan tahay